guurka waa mid ka mid ah xiriirada waaweyn ee islaamka aad u adkeeya dhidibadiisa oo uu dhiirageliyay kana yaglelay habraac iyo dhaqankii ambiyada. hase yeeshee bulshada Soomaaliyeed ayaa leh dhaqamo iyo caadooyin la xiriira guurka. hanaanka doorashada lamaanaha nolol wadaaga noqonaya ee iscalmaday ama is-arkooday ayay ku kala duwan yihiin gobolada dalka. wadiiqada loo marayo walow ay yihiin kuwa iska agdhow. halkan waa degmada Doolow ee gobolka Gado. muddo ka hor maamulka degmadan waxgaradka iyo cuqaasha ku nool degmadan waxa ay gaareen go'aan ku aadan arrimaha guurka, waxayna isku waafaqeen in la qafiifiyo guurka. taasi waxa ay suurto gelisay dhalinyaro badan oo ku nool gobolka Gado, gaar ahaan degmadan Doolow, inay ka faa'iideystaan go'aankii ay sida wada jirka u gaareen waxgaradka iyo maamulka degmada. talaabadan ayaa ka dambeysay kadib tabashooyin ka yimi bulshada qaarkeed. arrintan waxay ku bilaabatay fikir ka yimid bulshada dhexdeeda, hadday tahay maamul, culimo oo diin, haween, dhalinyaro. fikirkaas oo ahaa in aysan qurux badnayn, laga fiican yahay, aysan dadka iyo bulshada dan u hayn, guurka la qaaliyeeyay oo kharashkiisu badan yahay. go'aankaas waxaa si diiran u soo dhaweeyay dhalinyarada deegaanka oo qaarkood uu ku adkaa guurkii hore ee geela iyo gabdhaha la kala weedaaran jiray fursad dahabina u arkay. fikirka ah in guurka la khafiifiyo runtii wuxuu ahaa fikir aad u wanaagsan, kuna salaysan fikir laga fikiray oo bisil oo salkiisuna u yahay mid ah in uu faa'iido u yahay dhalinyarada aan wali guursanin nooc kasta da kasta yihiinba. runtii aniga waxaan u arkaa fikirkaas fikir la haleelay oo ah dhalinyarada u horseedayo inay isguursadaan, kuwa awoodin oo iyo kuwa danyartaha iyo kuwa aan wax haysan iyo kuwa wax haystaba. waqti xaadirkan markii aad u fiirsato xilliyadii hore way yaraayeen inay guur dhaco, waxay ahayd naadir iyo dhif, waqti ka waqti ba ahayn. laakiin markii guurka la khafiifiyey wixii ka dambeeyay waxaad arkaysaa maalintii oo ay dhacayso 3 aroos ka badan, maalintii 4 aroos ka badan dhacayso, isbuuci intaasoo ay aroos u dhacayo. taasina waxay tusinaysaa natiijadii uu dhashay fikirka ayada oo la qaatay. degmadan oo muddo kooban aan ku sugneen ayaa waxaan kula kulmay dhowr aroos. aroosyadan waxay ka dambeeyeen is-afgaradkii heshiiskii dhex maray waxgaradka deegaanka iyo maamulka degmada, waxaana fursad u helay lamaanayaal fara badan oo is-amaday in nolosha ay ku wadaagaan waqti kooban. magaalooyinka Doolow iyo Balad Xaawo ayaa waxay noqdeen kuwo marti u ah maalin walba aroos cusub. dhanka kale gabdhaha qaarkood ayaa aaminsan in aroosyada xilligan ka dhacaya degmada Doolow aanay soo xaadirin dad fara badan, halka aroosyadii hore looga imaan jiray gobollo iyo magaalooyin fogfog. sababtu waxay tahay gabdhaha aad waxay u jecel yihiin in marka la guursanayo xaflad balaaran la dhigo, ehelka dhan isu yimaado, meelo badan laga yimaado. Soomaalida dhaqan hore lahaan jireen gabar marka la guursanayo dad badan baa meelo fog ka imaan jiray, ilaa waxa laga yaabaa in laga yimaado Hargeysa ilaa Kismaayo, meelo fog. sidaas darteed dadka marka waxay leeyihiin waxa meesha kama jiraan, waxaan ka raadinaynaa. guurka waa heshiis ku qotoma diinta Islaamka iyo dhaqanka suuban, waana is-afgarad ka dhex dhaca laba qof oo lab iyo dhadig kala ah, kuwaas oo ku heshiiyay inay reer yagleelaan. waxaase isweydiin mudan, sidee baa lagu qanciyay dhalinyaradii haasawaha wadaagi jiray ee sheekadoodu guurku ay ku idlaan jirtay ee dhaqankii Soomaalida soo mari jiray ee ku noolaa gobolka Gado. go'aankan sida wada jirka ay u gaareen waxgaradka deegaanka iyo maamulka deegaankaasi. wax weyn baa iska bedelay wariye. waxa kamid ah waxa iska bedelay guurku awal midalan wuu yaraa, markii wax laga dhimay wax laga bedelay kharashaadkiisii, wacyigelin badan, wacdi badan laga sameeyay oo la qaatay. waxa iska bedelay inuu horta bato guurkii. waxa kale oo isbedelay dadkii dan yarta ahaa, dadka guursanaya inay kamid noqdeen oo xog u soo galeen. awal waxa guursan jiray inta badan dadka xoogaaga hantida leh, 90% guuxooda waxa weeye in arrinta lagu faraxsan yahay. 5% waxa weeye waxba meel lama raacsana. 5% waxay leeyihiin dadka maxaa loo khasbayaa qof walba jeebkiisa xukumee.
wiilal badan oo ku nool deegaanadaasi ayaa helay nolol ku qotonta qoys nolol wadaag ah oo aanay muddo ka hor ku fakarayn. runtii go'aankan markuu soo baxay shakhsiyaadkii annaga dhalinyarada gaar ahaan dhalinyarada shakhsiyaadkii soo dhaweeyey oo u mashaxadaday baan ka mid ahayn walow gabdhuhuba laftirka waa ayagaba is ha soo dhaweeyaan oo way soo dhaweeyeen markay waxay tahay taas irid furantay aniga marka shakhsiyankan iyo anigii asxaabteydii iyo dhalinyaradaba aad baan u soo dhaweyn waan ku faraxnay dabcan waan filaynay in ay ka dambeynayso in uu fududaado guurkii in ay dad badan is aroosaan in qoysas badan ay abuurmaan guryo badan inuu dhismo dabcan haddana tii ayadeed way dhacday oo hadda in badan baa dad badan baa is aroosay oo arooskii u fududaaday waana alxamdulilah taasna gabdhuhuse waxay u arkaan in arrimaha guurka iyo galbinta aroosyada aan laga faragelin oo loo madax banneeyo lamaanaha nolol wadaagga noqonaya. ninkii wax haysana si fiican oo qurux badan inuu u guursado ninkan wax haysanina wax Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa bixiyo. sida idin muuqata gawaaridan waxay qayb ka yihiin aroos la galbinayo waana nolosha cusub ee heshiiska ay sida wadajirka ugu gaareen maamulka degmada iyo waxgaradka deegaankan. inkastoo la koobay gawaarida lagu galbiyo aroosyada iyo qarashka lagu bixinayo guurka ayaa haddana waxgaradka waxa ay ka digayaan in ragga iyo dumarka isguursaday aanay ku fududaan oo furiinka waa jira konseynkaas wuu jiraa waana mana badna laakiin wuu jiraa waxaa looga gaashaaman karaa wacyigelin dadku horta inay fahmaan xaqa la isku leeyahay wiilkii gabadhu isku leeyihiin haddii gabadhu raqiis kugu soo gashay inaysan si degdeg kugu dhaafin in laga wacyigeliyo dadka in bulshada laga baraarujiyo in diiniyan iyo mataqaanaa macnawiyan oo macnaha cilmiga maadiga iyo diiniga labadaba dadka la baro in masaajida laga wacyigeliyo meelaha bulshada ku kulanta in loo sheego in mataqaanaa sida guurku ku wanaagsan yahay markii la maray inaan loo bedelin sida kale oo xun oo ah furiinku inuu bato. gabdhaha ku nool degmada Doolow ee gobolka Gado ayaa dhankooda arrinkan ka digaya. والله فرنين كرت وجرا إنه بدن لكن قفك إن بدن بوسوت شوقي وحلقة يابا إنه نول البدن إيو محل واحد بدن أو يكسنا إنه يجرت على يابا وربي إن واحد بدن لو سماه مركز زرتت قفك وحال ربعين قفك السبب وحي تبرتي سيقضى حقوقك تاسو مالد ورساس قطري heshiisyadii ay wada gaareen maamulka iyo dadka deegaanka waxa qayb ka ah in arooska lagu galbiyo 5 gaari oo kaliya taas ayaana qayb ka ah dhaqaalaha tashiilka ay ku heshiyeen dhinacyadan taa oo faa'iido u noqotay dhalinyarada. go'aankii sida wadajirka ah ay u gaareen muddo ka hor maamulka degmooyinka Doolow iyo Luuq ayaa u muuqda mid hergalay. waa sheeko aad u xiiso badan oo soo jiidatay dhalinyarada degmada waxayna fursad u heleen inay aasaasaan dibadana u taagaan nolol cusub waxaana gashay rajo cusub waxaase xusid mudan in qaar ka mid ah asxaabtii aan bahwadaaga ahayn ee socdaalkan ugu wehelinayay in qaarkood rajo guur halkan ay ku gashay.